السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada youtube channelkayga please waxaa idin ka codsanayaa subscribe-ka inaa ii saartaan oo ii share garaysaan oo like-tan ii saartaan kadib wixii intaas ka dambeeya sheekadan aan idin guda galayaa. Sheekadan waxay ku saabsan tahay gabar oo family ahayd waxaa lahaa magaceeda waxaa lahaa nolosha ha ka quursanin. waxaan isku dayaa inaad daqiiqadaha dheeraanin insha allah. gabadhan waxay dhahday family ahaa reeraa lahaa waxay dhahday maxaa lahaay anigoo 20 jir ah la ii guursaday ninkaygana waxay dhahday aada isku fahansaneed aadna iskugu qanacsaneen laba qof oo maasha allah isku aheen. kadib waxay dhahday owlaad ilaahay nama siinin. kadib waxay dhahday markaas waxaan bilownay inaan dhakhtar la xiriirno si aan ubad u raadino. waxay dhahday ciladii aniga igu soo baxday waa isla tacaalay dhahday mar ogxaantaa lii dhahaa mar wax maxaa lahaa raximka buro kaaga taalo marba waxaa la iga qalaaya dhahday marba saa iskula tacaalay mar waa la igu beeray dhahday waa iga soo daateen maxaa dhahaay marka intaas warafaad aan maray wax waa ii suurtageli waayeen. waxay dhahday khalaas waa maxaa dhahaay waan ka quursaday yacni maxaa dhahaay inaan ilmo raadiyo. sanadkaygina wuu sii kordhay waxay dhahday waxaan gaaray 40 sano markii la ii guursanayeen 20 jira ahaa 40 markaan gaaray waxay dhahday ninka cidiisi oo weligiisiba dhahayin gabadha kugu daraynaa baa waxay dhahday marka 40 gaaray dhaheen khalaas waa qoftaan maxaa dhahaay cumrigii oo yacni oo lagu dhali lahaa yacni khalaas waa hadda maxaa dhahaay 40 ay gaartay way ka dhamaatay gabaraan kugu daraynaa si aad ubad u dhasho. wuu diidi jiray ayadoo aad u jeclaa laakiin waxay dhahday ciddii markasta say ugu soo noqnoqonayeen markii dambe wuxuu go'aansaday oo taladooda raacay ciddii wuu guursaday. markuu guursaday oo reer yeeshay waxay dhahday maxaa dhahaay sanadkii ugu horreysay maasha allah wiilaa loo dhalay dhahday. wiilkii markii loo dhalay gabadhana waxay dhahday guri adii markaas aniga ii dhow uu dejiyey dhahday oo anigana waxay dhahday waa ogahay oo markii horeeto waa fududaaday waan ogolaaday inuu guursado maadaama aniga aan maxaa dhahaay ilmo dhalin waxaa is dhahey dhahday asaga ha ka hor istaagin iska raf noloshiisa u noolaado. waxay ila aheeday dhahday arrin sahlan laakiin markuu guursaday oo ilmo meesha imaaday oo waxaan ku dhahay dhahday farxadooda iyo qosolkooda aan maalin kasta maasha allah aan arkaayo anigoo xaasidnimo iga ahaynay dhahday laakiin waxay dhahday markaasaan dareemay inaan guri madow aan fadhiyay dhahday oo mugdi ah oo maxaa dhahaay awal waxay dhahday ninkaan aniga keligii waqti gelin jiray anigoo ila ciyaari jiray waa i wareejin jiray yacni maxaa dhahaay laba qofool oo aad isku fahansanoo waxaan ku dhahay iskaftan yaqaano laakiin hadda waxay dhahday ninkii wuxuu bilaabay inuu reerkaas uu u bato maadaama bebi cusub uu meesha imaaday inuu markasta canuga ciyaarsiiyo markasta waxaan ku dhahay mashquulkiisa oo xagga u bato. kadib waxay dhahday anigana waxay dhahday waxaan dareemay maseer zaa'id ah iyo calool xumo maseerkii oo haddana ilmo la-aan kugu sii darsantay yacni waxay dhahday calool xumo nolosha dhanaa oo ciriiri igu soo noqotay waxaa go'aansaday dhahday inaan ninkan noloshiisa aan ka baxo oon reerkeenni aan u laabto laakiin asaga wuu iga diiday dhahday oo wuxuu dhahay aniga waa ku jeclahay adduunyada waxa dul saaran adaa kaa jeclahay waxaana qadari ahaayeen ciddeena igu qasbeen almuhim waxay dhahday waa ka diiday waan ka tegay reerkeenniya u laabtay walaalihiyan waxaan ka codsaday inay intaan maxkamad ii geeyaan hadduu i furi waayo ee xoog iiga furaan aanan ku laabanin noloshiisa dambe. kadib waxay dhahday markay sidii dhacday walaalihii waa iga aqbaleen xoogaa la iiga furay dhahday waa reerka anigu hooyaday la joogay dhahday oo haddana nabad iska qaba hooyaday awal waa iska xanuunsaneed xanuunkeedii haddana sii siyaaday 7 bilood ayay nooleeday dhahday hooyaday way dhimatay keliyaha awal laga haayay keliyihii u dhimatay. kadib walaalihii waxay dhaheen maadaama hooyo ay dhimatay guriga adiga bes aad joogtid guriga anagana u baahanna waa la gadaa lacagtana waa kala qaybsanaynaa adigana anaga nala noqdow waa aqbalee dhahday waa aqbalee dhahday. kadib waxay dhahday maxaa lahaa anigii waxay dhahday noloshii haddana oo noloshii hooyadayna waayey oo gurigeenna waayey oo reerkii aan lahaana aniga iska soo baabi'iyey dhahday oo igu xumaaday reerkaygina igu soo xumaaday haddana waxay dhahday walaalkay gurigiisaa korfuul kusii noqday oo reer leh way ixtiraami jireen waxay dhihi jireen laakiin booska hooyadeena noo joogtaa yani sida qof weyn camal ay ila dhaqmi jireen dhahday
so marka anigana waxaan dareemay dhahday culays aan dareemay inaan korfuul ahay inaan noloshii yani meel kasta iga soo xirantay aniga sida iskaga fikirsan waxay dhahday odaya isoo doontay dhahday oo 60 jir ah odayga markuu isoo doontay waxay dhahday waa iska waafaqay liwajhi lillah ayaa u waafaqay dhahday odaygaas yani oday xanuunsan oo sokor qabu ah waxaa is dhahay dhahday iska caawi odaygan intuu maxaa lahay ilaahay dartiisa adigana meeshaan iska fadhisid naag reer leh oo guri lehna noqo kadib waxay dhahday odaygii sidii markaa ku guursaday anigoo reerkaygii iyo waxay dhahday alxamdulilah xanuun igu soo booday xanuun markuu igu soo booday mindhiciraha sida laiga qabanaya iyo dhabarka waxaa is dhahay dhahday 40 iyo marka waxaa jira ay dhahday 2 sano waxaa is dhahay dhahday dhiigyaa kaa tegi rabo oo maxaa lahaye khalaas waay waa kadib waxay dhahday dhakhtaraan tegey dhakhtarkii markaa tegey dhakhtarkii wuxuu isoo dhahay uuraa leedahay yani waxay nala noqotay dhahday surprise wax aan filaayay yani subxaanallah noloshayda ma aysan ahaynay dhahday ilaaha wiil isiiyey reer qurux badana ilaahay iiga dhigay dhahday reerkeygii odaygii oo ilaahay dartiisa aan u guursaday wuxuu ii noqday dhahday nin maasha allah tabaaraka allah oo dalxiis iyo meel kasta ii wadaaya oo waxaan ku dhahay noloshii mar kale iftiinkii iyo quruxdii ninkaas aan ka rajeynayay iyo ubadka aan ka rajeynayay ilaahay waxay dhahday odaygaanu iga siiyey gabadhaas aniga qisadeeda toos u daawaday oo maasha allah tabaaraka allah beebigeeda xitaa waa arkay subxaan allah yani maasha allah yani nolosha waxaa waaye marmarka qaarkoodna way kula tagtaa marna way ku caawisaa